kulanti wacan oo hagaagsan saaxiibayaal idil ahaantiinba ku soo dhawaada barnaamijkan gaarka ah oo ka dhashay su'aalo laga soo weydiinayay safarka magaalada Kampala sida lagu soo aado wadankan Uganda wixii ka dambeeyay markii aan soo galiyay vlogii travel Nairobi to Kampala ee safarkayga waxa marka ka dambeysay igu soo badanayay su'aalaha la xiriiro sida lagu yimaado wadankan Uganda wadada marka la soo maraya waxa la iska rabo iyo guud ahaanba sharciyada qofka looga baahan yahay waxaan si guud uga warbixin doonaa hadaba saddexda baasaboor ee ay Soomaalidu inta ugu badan Soomaalida Afrika ku nool ay sidato Soomaalida Afrika ku nool inta ugu badan waxa ay sidataa saddex baasaboor oo kala ah baasaboorkeena Soomaaliga ah kan Kenya iyo kan Ethiopia saddexdaas baasaboor ayaan insha Allah ka warbixin doonaa sida Uganda loogu soo aado iyo sida guud ahaanba saddexda wadan ay isugu travel gareeyaan anigoo guud ahaan barnaamijkan kaga jawaabi doono su'aalihii aad soo weydiinayseen aan ku bilaabo baasaboorkeena Soomaaliga ah marka aad sidatid baasaboorkeena Soomaaliga ah ee aad doonaysid inaad u soo safarto dalkan Uganda waxa aad dalbanaysaa fiisaha marka uu ku soo baxo ayaad soo baxaysaa tigidhkaaga soo goosanaysaa wadankan Uganda immigration kuugu soo horeeyay aad soo gashay ayaa wuxuu kuugu dhufanayaa inaad inter wadankii soo gashay fiisahaagina hore ayaad u wadatay lacagtiisina hore ayaad u bixisay sidaas leeg marka aad u dhoofaysid Ethiopia iyo Kenya adoo baasaboorka Soomaaliga ah sidatid isla wadadaas baad maraysaa aan soo gudbo baasaboorka Ethiopianka ah baasaboorka Ethiopianka ah marka aad sidatid ee aad doonaysid inaad dalka Soomaaliya soo booqatid waxa aad soo goosanaysaa tigidhkaaga waadna soo baxaysaa fiisa ma dalbanaysid waa visa on arrival marka aad dalka soo gashid ayaa immigrationka kuugu soo horeeya waxa uu kuugu dhufanayaa visa entry inaad dalkii soo gashay uu kuugu dhufanayaa lacagtii fiisahana waad bixinaysaa sidaas ayaa dalka ku soo galaysaa fiisuhu waxa uu kala baxaa fiisa la dalbado oo markaasi qofku intuu dalbado uu sugayo markuu u soo baxo uu soo bixi karayo iyo visa on arrival oo ah marka dalkii soo gashid in fiisi lagu dhufto oo markaasi aadan dalbanaynin so baasaboorada wadamada ay ku kala xidhan tahay taasi isla baasaboorka Ethiopianka ah marka aad sidatid ee aad u soo dhoofaysid dalka Kenya sidoo kale waa visa on arrival fiisa ma dalbanaysid tigidhka ayaad soo goosanaysaa kadibna immigrationka Kenya ayaa waxa uu kuugu dhufanayaa visa entry inaad dalkii soo gashay ah ku darso waa free 3 months ah baasaboorka Ethiopianka ah markaad ku imaanaysid wadankan Uganda waa visa on arrival yani fiisaha marka aad wadanka soo gashid immigrationka kuugu horeeyo ayaad kaga dhufsanaysaa inaad wadankii soo gashay lacagna waad bixinaysaa it's not free markaad Uganda imaanaysid baasaboorka Ethiopianka free ma aha lacagtii fiisaha ayaa laga qaadayaa laakiin waa visa on arrival oo asagu fudud yahay yani inaad fiisa dalbatid sugtid iyo waxaas waqti ma kaaga baxayo tigidhkaaga ayaad soo goosanaysaa baasaboorkaagana waad soo qaadanaysaa immigrationka markaad imaatid wadankan Uganda ayaa waxay kuugu dhufanayaan ama diyaarad soo raac ama gaari soo raac waxay kuugu dhufanayaan entry inaad wadankii soo gashay cadeynayo lacagtana waa laga qaadayaa waa baasaboorka Ethiopianka ah intaas aynu kaga gudubno baasaboorka Ethiopianka ah baasaboorka Kenyaanka ah ayaynu ka hadlaynaa baasaboorka Kenyaanka ah marka aad rabtid inaad Soomaaliya ugu dhooftid waxa aad dalbanaysaa fiiso maadaama hada dawladii khilaaf ka dhaxeeyo sharci ah in baasaboorka Kenyaanka ah qofka wato ama qofka Kenyaanka ah uu fiiso soo dalbado fiisaha markuu u soo baxo kadib uu soo dhoofo uu Soomaaliya imaado sidaas la ajligeed wuxuu la mid yahay Kenya Soomaaliga markaad Kenya Soomaaliga wadatid oo aad u dhoofaysid Kenya fiisa ayaa dalbanaysa sidoo kale markaad wadatid baasaboorka Kenyaanka ah oo Soomaaliya u soo dhoofaysid fiisa ayaa dalbanaysa isku wada ayaad maraysaa waana isku xeer markaad baasaboorka Kenyaanka ugu dhoofaysid Ethiopia waa free maadaama Ethiopia iyo Kenya ay leeyihiin heshiis ama cilaaqaad sidii la eg isagana waa 3 months oo free ah fiisa inaad dalbatid waqti ku bixisid uma baahnid labada wadawladoodba heshiis waxa ka dhaxeeya mid walba 3 bilood muwaadinka Kenyaanka ah markuu Ethiopia tago wuxuu haystaa 3 bilood oo free ah oo aan lacag laga qaadaynin kan Ethiopianka ah markuu imaado Kenya wuxuu haystaa 3 months sidii la eg oo free ah oo aan lacag laga qaadaynin raali noqda waxaan deganahay meel yara magaalada dhexdeeda oo hoonka iyo buuqa iyo igu qaataya baasaboorka Kenyaanka ah markaad wadatid oo aad doonaysid inaad u soo dhooftid wadankan Uganda
wax fiisa ma dalbanaysid marka aad imaatid immigrationka Uganda ayaa waxa lagu dhufanayaa inaad wadankii soo gashay wax laagana ma laga qaadayo isagana cilaaqad ayaa ka dhaxeeyo wadamadan Afrika East Africa Kenya Uganda Tanzania Rwanda Burundi iyo South Sudan lixdaas wadan waxa ay samaysteen heshiis waxa ayna ku midaysan yihiin community la yiraahdo East African Community taas oo keentay in wadan kasta oo kamid ah lixdaas wadan ee East Africa uu samaysto passportka East African Community East Africa passport marka wadid lixdaas wadan midka aad doontid ayaad u dhoofi karaysaa wadanka doontid ba ka qaada dad Rwanda istahay oo qaadatay passportkaas waad kala dhoofaysaa lixdaas wadan midka doonto oo yaani kaagu ku jira markaas shanta kale yaani waa free oo fursad qaali ah waxa intaas dheer hadii aad haysatid kabaande oodan passport haysanin maadaama kabaanduhu uusan ahayn documented safarada waaweyn lagu aadi karo waxa aad goosanaysaa warqadda East Africa kadibna waxaad u dhoofi kartaa lixda wadan ee East Africa midka aad doonto waana free waxa fududeeyay arrimahaas oo dhan maadaama wadamadan East Africa uu cilaaqad wanaagsan ka dhaxeeyo sidoo kale ay heshiis fiican wada saxiixdeen ay arrimahaas oo dhan fududeysteen iyaga dhaxdooda sida isugu safri karaan iyo waxyaabaha la mid wadamada Horn of Africa oo Ethiopia Soomaaliya Djibouti iyo ay kamid yihiin waxba cilaaqad fiican kama dhaxeeyo حتى باسبورada fiisaha ayaa la kala qaataa intaas waxa weeyaan aqoonsiyada iyo markaas wadamadan Horn of Africa iyo East Africa inta aynu sharaxayno hadda marka waxaan u soo gudbaynaa wadadani Uganda iyo Kenya isku xidha iyo qofku sida uu soo mari karo maadaama su'aaluhu ay dhankaas u badnaayeen hadda waxaanu soo gari doonaa ka jawaabista su'aaluhu ugu badnaayeen marka aad weydiinayseen arinta baasaboordo oo kamid ah su'aalaha kulay waan ka jawaabay marka wadadan soo maraysid saddexda baasaboort midka aad wadid midka doonto wadee sida aad ku soo maraysid waan idin sheegay waxaynu galeynaa hadaba su'aasha xigtay oo ahayd ma laga rabo warqad caafimaad warqadda coronaviruska yes waa masti warqadda coronaviruska inaad wadatid ma laga rabaa talaalka FIFA yellow cardka ama talaalka Soomaalidu inta badan waxay tiraahdaa buuga caafimaadka waa laga rabaa masti weeyaan inaad soo qaadatid talaalkii kaarkaaga iyo talaalkaagiba haddii aad horay talaalka u qabtay oo aad kaarkaagi haysatid waa okay kaarka hore u soo qaadanaysaa haddii aad talaalka hore u qabtay maadaama talaalka 12 sano uu qofku ku jirayo haddii talaalka hore u qabtay oo kaarka ka lumayna waxaad ka samaysanaysaa xuduudka ayaad ka samaysanaysaa waxaana lagu samaystaa $20 ayaa lagu samaystaa sidoo kale Nairobi dhaxdeeda waad ka soo samaysan kartaa haddii sharciye kaar sharci oo qurux sax ah soo qaadatid it's good soo samaysan kartaa taas waa kaarka yellow kaarka Soomaalidu waxaan kula talinayaa dadka Soomaaliyeed fadlan idinku on talaalka soo qaadanin kaarka soo qaadanina because of kaarkaasi wuxuu idinka anfacayaa because talaalkaasi wuxuu idinka anfacayaa inaad ka badbaadaan Ilaahay wax badbaadiye cudurro tira badan oo laga qaado wadamadan laaga hale haraha le cudurro tira badan oo laga qaado kaduudiyuhu kamid yahay cudurro tira badan ayaa jiro marka cudurradaas ayuu ka hortagaa talaalku marka waa muhiim kaliya buuga ha soo qaadan oo haystiin dadka isaga qancay ee adiga naftaada ka taxadaraysid kulay talaalka hadda kulay dad buuga gadanaysa buuga $20 waaye talaalkina waa isla 20 kaas yaani lacag kale oo dheeri laga ma qaadayo isla 20 kaas lee waaye soo talaalkaaga hore u soo qaado adiga ayuu ku anfacayaa taas ayaan waliba Soomaalida kula talinayaa aad baa mahadsantiin qodobkaas inta ka gudbo baska Nairobi to Kampala tigidkiisu waa $35 waa markaad nadiif tahay sharciyada ku dhameystiran yihiin FIFA yellow cardkaaga wadatid coronaviruska warqadaysi wadatid aqoonsigaaga ama baasaboorkaaga aad wadatid waxa weeyaan $35 waxaad magaalada Nairobi ka soo baxaysaa 10 saac oo galabnimo iyo inta badan bas ku soo baxaa oo basaska tooska ah ee Nairobi to Kampala 10 saac oo galabnimo ayuu soo baxaa waxa uu magaalada Kampala soo galaa 3 saac oo subaxnimo waxa uu soo socdaa halkaas waxa weeyaan shan lagu daray 12 saacadood habeenkii ah waxa weeyaan 17 saacadood 17 saacadood marka basku toos uma socdo waxa weeyaan meel uu istaagay ayaa jirta tusaale ahaan Busia oo kaleeto markaad 4 galabnimo ka soo baxdid magaalada Nairobi oo iyada laftirkeeda jamkeeda iska fahmi karto markaad 4 galabnimo soo dhaqaaqdaan
busiya waxaad soo galaysaa magaalada busi ee xuduudka ah waxaad soo galaysaa kowda habeenimo ama 7 saac habeenimo qofka sidoo u yaqaano markaad kowda habeenimo soo gashid busiya waxaad busiya ka soo baxaysaa 3 habeenimo 2 saacadood ayaad busiya joogaysaa waa baska tooska ah ee bulshada dhan wado baska sababta uu 2 saacadood busiya u dhex joogo wax weeyaan inta fiisayaasha baasaboorada la saarayo inta maaragtay dadka aan yellow card-ka wadanin yellow card-ka la siinayo talaalkii la siinayo dadka intaas dhan baska saaran basaska weyn ama ogtaa inta waxooda sharciyadooda iyo maaragtay say wadada ku mariyaan laga sheekimayo ayay 2 saac iska qaadataa so kowda habeenimo basku soo galaa busiya wuxuuna ka soo baxaa 3 habeenimo 3 habeenimo markuu busiya ka soo baxo wuxuu imaadaa magaaladan Kampala caasimadda ah 3 saac oo subaxnimo ama 9 subaxnimo qofba sida uu yaqaano sida gawaaridu kala dheereeyaan wax weeyaan basaska qaar waxay ku yimaadaan 17 saacadood qaarna 16 saacadood celcelis ahaan adiga safarku inta ugu badan wax weeyaan 16 saacadood ilaa 17 saacadood weeye Nairobi to Kampala shidka kiiloomitarskiisa marka dhulka la soo marayo Nairobi to Kampala waa 658 kiiloomitars xogtii ku saabsanayd Nairobi to Kampala safarkeeda iyadana waan idin dhammaystiray waxaan jeclay inaan waxba iga dhimanayn laakiin haddii ay jiraan waxyaabo kale su'aalo dheeri oo travel hayd isoo weydii waan rajaynayaa saaxiib inuu muuqaalkani ku caawiyay wuxuun aad ka faa'iiday fadlan hadaad muuqaalka wuxuun ka faa'iiday anigana aan like ka faa'iido muuqaalka like saar like-taas waxay iga caawinaysaa inuu muuqaalka dad tiro badan gaadho aad baad u mahadsantahay thank you hadaad saaxiib nala noqotid oo channelka rukumatidna insha Allah waxaad naga helaysaa barnaamijyo badan oo ku xiiso geliya waxyaabo muhiim ah wax kasta iskama sameeyno waxyaabaha muhiimka ah wuxuun bulshadu ka faa'iideyso naftayda iyo naftaada waxay wuxuun ka faa'iideyaan ayaan soo galinaa insha Allah waxaan baad ka faa'iidi doontaa saaxiib nala noqo nalana soco insha Allah taala waliba hadda waxaan bilaabi doonaa barnaamijyo aad u xiiso badan oo aad uga heli doontaan ayaan jadwaleeyay oo bilaabi doonaa ila socda insha Allah taala barnaamijka intaas ayaan ku soo afmeerayaa anigu waa Ilhaan Laki YouTube-ka daawanaysidna waa Ilhaan Laki Studio saaxiib nala noqo saaxiib aad baad u mahadsantahay aynu wada guuleysano meel kasta joogtaana ilaahay safarka iyo hawlaha iyo qof walba hamigu leeyahay hawl dhib yaray ayaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin waana salaamantihiin aynu wada guuleysano bye bye